siyaasi Rashiid Macallin oo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta telefishinka horyaal kula hadlayay magaalada Burco ayaa ka hadlay loolanka iyo hirdanka lagu jiro shirgudoonka golaha wakiilada waxaanu ka deyriyay siyaasadda arrimaha dibadda oo uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Muuse Bixi kaga mashquushay doorashada shirgudoonka golaha wakiilada. halkan maanta waxaan doonayaa bal inaan kala hadlo xukuumadda kulmiye. waxaan leeyahay marka ugu horeysa weeyaani shacabku waa isbedel doon. shacabkuna waxay u codeeyeen isbedel. shacabku waxay sheegeen inay maanta doonayaan isbedel oo xisbiyada mucaaradka codeeyeen. waxaan u maleynayaa maanta in la isku haysto guddoomiyaha baarlamaanka inaanay ahayn, waayo aqlabiyad bay ku heleen xisbiyada mucaaradkii ama koaliishinku. waxayaan darro ah in mandaqadan inaynu ku nool nahay iyadoo ay maanta holcayso wax badani ka socdaan inaynaan maanta wasiir arrimo dabadeed lahayn muddo 5 bilooda ee xukuumaddiiba ku mashquushay wixii ay howlo lahayd kaga mashquushay guddoomiyaha baarlamaanka. waxaan leeyahay marka hore xildhibaanada waxaan leeyahay waar xil ummadeed baa qaadeen. ummaddii ay soo dooratayna waxay ugu ballan qaadeen isbedel. nin qolada leh xisbiyadu meel laga soo bixin bay ahayd iyo xisbiga markuu aad iska sharaxaysay policy buu lahaa. foomna waa lagaa bixiyey. foomkii lagaa bixiyeyna wixii ku qoraa waad garanaysaa. waxaan leeyahay xukuumaddu faraha ka qaado waxay ummaddu u codaysay isbedelka ah. cabdirsaaq iyo farto waa 2 ninoo isku deegaana, laakiin maxay kula mudan yihiin? dalku ma baahna maanta 90 years old dambe. wuxuu baahan yahay qof fircoon wax qabta adigoo isagoo ixtiraamkiisa mudan. maanta waxaan leenahay hala nasiyo nasashuu baahan yahay. cabdirsaaq khaliifna waxaan leenahay waa nin hanan kara. waxaan kula leenahay maanta isweydiin ma lahayd xisbigu ka soo baxay, xisbigii uu ka tirsanaana ayaa soo doortay. sidaa darteed waxaan leeyahay madaxweynaha doorasho fiican baad qabatay, laakiin islaantii dhimatay haddii axanku raacaa baa layidhi legasigaagii waxaa maanta ku qurux badnaan lahayd adigoo faraha ka qaada farafaraynta guddoomiyaha baarlamaanka ah. waxaanu leenahay ha laga daayo qabyaaladda, ha laga daayo lacagta laaluushka ah, laga daayo. maanta xildhibaanka isagoo weli golahiiba iman lacagta yar u xilanayaana berri wax laga sugayaa ma jirto. markaas sidaa darteed waxaan leeyahay xukuumaddu faraha ka qaado farafaraynta ay ku waddo xildhibaanada. dadkuna way doorteen no more, way doorteen dadku wixii ay doonayeen. ummadda 2 nin u kala abtirinaysaana ka daayeen ee midna ka dhigaysa mid dalka badbaadinaya, midna ka dhigaysa mid dalka rogaya. waxaan leenahay 2 ninba waa niman u qalma, ixtiraamkooduna waa mudan yihiin. nin baana loo codeeyey maanta mucaaradkaana aqlabiyadda leh. Cabdiraxmaan Trika, telefishinka horyaal magaalada Burco.